kusoo dhawo Fan Academy taawo calaamada subscribe-ka kadibna furo gambaleelka taana waxay ku saaraysaa cashar kastoo aynu soo dhigno inuu kuu soo dhaco isla waqtiga aynu soo dhigno waad mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada cashirkeenan waxaynu ku baran doonaa tensiga koowaad ee luqadda Englishka oo loo yaqaano simple present tense ama present simple intaynan bilaabin cashirka ka hor aynu ogaano waxa loo isticmaalo tensigan si guud ahaaneed tenseska Ingiriiska waxaa loo isticmaalaa in lagu qeexo waqtiyada kala duwan ee ficilka la sameeyo tensigan waxaynu u isticmaalaynaa ficilka ama falka sida joogtada ah loo sameeyo tusaale haddaad tahay arday subax kasto waxaad aadaa dugsi marka ficilka aadidda waa ficil joogto ku ah waxaad leedahay anigu waxaan aadaa dugsi subax kasta I go to school every morning qofka hadduu yahay darawal wuxuu leeyahay anigu waxaan kaxeeyaa gaari sababtoo ah waa shaqadiisa xilli kasta wuu kaxeeyaa wuxuu leeyahay I drive ama I drive a car falalka noocaasa waa falal si joogto ah loo sameeyo haddii aad tahay ruux daawada TV habeen kasta waxaad leedahay aniga waxaan daawadaa TV I watch TV every night sida awgeed waxaad halkaas ka fahmaysaa in tensigan loo isticmaalo falalka ama ficilada sida joogtada loo sameeyo bal haddaba aynu sharaxno cashirkeena what is simple present tense waa maxay simple present tense simple present tense is also called present simple present tense is also sidoo kale called waxaa lagu magacaabaa present simple waxaynu isticmaalnaa the simple present tense to talk about inaynu kaga hadalno regular or habitual actions ficilada joogtada ah ama kuwa caadiyan ah it is the most basic and common tense in English it's really important to understand well it is the most basic and common tense in English it's really important to understand well tensigan waa tensi aad aas-aasi u ah caana ku ah ama caam ku ah luqadda Englishka it's really important dhab ahaantii waa muhiim to understand well in si fiican loo fahmo general structure qaab dhismeedka guud ee tensigan markii aad samaynayso tensigan waa inaad ka bilowdaa subject oo ah qofka falka sameynayo subject waa qofka ficilka sameynayo aniga adiga ayada isaga inaga noocaas oo kale I we you he she it they subject aan ka bilaabayna qofka ficilka sameynayo ama waxaan sheegaynaa magaciisa ama sidaan oo kale pronounkiisa kadib waxaan ku xijinaynaa verbka oo falka la sameynayo kadibna objectiga oo ah qofka falka ama shayga falka ku dhacayo I speak English aniga waxaan ku hadlaa Ingiriis I was subject speak verb English no object spelling of the third person singular forms in the present simple tense sida loo isbeeliyo ama loo hingaadiyo qofka saddexaad ee mufradka ah qaababka loogu sameeyo tensigan simple present tensiga ah hadda waxaynu soo aragnay in I speak English la yiraahdo marka laga hadlayo he she it ayagu way ka duwan yihiin laakiin I we you iyo they ayagu way isleeyihiin waxa lagu darayo ficilkooda ma jiro bal aynu aragno qaabka loo sameeyo qofka saddexaad ee mufradka ah he she iyo it
ficilkooda. Most verbs add s to the infinitive. Verbs finishing with a vowel plus y add s. Inta badan falalka luqadda Ingiriiska marka laga hadlayo he, she, it waxaa lagu daraa s. Falalka ku dhammaanayo vowelka lagu daray y ayadana ku dar sidoo kale s hadduu ficil ku dhammaado y laakiin xarafka ka horeeya uu yahay vowel. Vowelka waxaa la yidhahdaa a, e, i, o, u shantaas. Inta soo hartana waxaa la yidhahdaa abcda consonants. Tusaale work, works. See, sees. Know, knows. Live, lives. Haddii aynu ka hadlayno I, we, you, they waxaynu isticmaalinaa qaybta koowaad ee falalka caadiga ah. laakiin haddaan ka hadlayno he, she, it qofka saddexaad ee mufradka ah hadda magaciisa soo qaadano ama magacyaalkiisa waa inaan ku darnaa s. Verbs ending with consonant and y change y for is. Falalka ku dhammaanayo shibane lagu daray y janji badel y-da ku badel for is ku badel. Haddii aynu ka hadlayno qofka saddexaad ee mufradka ah ficilkoodana uu ku dhammaanayo y waxaynu eegaynaa y-da maxaa ka horeeyo. saa hore usoo sheegnay hadduu ka hormaro vowel s oo keliyaan ku dareynaa laakiin haddii y-da ay ka hormarto xaraf shibanaha consonant ah y-da waynu bedelaynaa waxaan la imaanaynaa is. Tusaale cry, cries. Cry wuxuu ku dhammaadaa y laakiin y-da waxaa ka hormaray r, r-na waa consonant sida awgeed waxaan leenahay cries. Harry, harries. Fly, flies. Imply, implies. Try, tries. qaabkaas ayaynu u sameynaa insha allah. Verbs ending in sibilant sounds ama hissing sounds. ficilada ku dhammaado sibilant sounds sida s, z, ch, sh or x add es to the infinitive. Haddii ficilka ku dhammaado ereyada la yidhahdo sibilant ama hissing soundska oo u dhawaaqo sida maski oo kale s, sh, s, x ereyada noocaas ah aynu ka hadlayno qof saddexaad ee mufradka ah ficilkan uu ku dhammaado xarfahan waa inaynu raacinaa s ficilka. Tusaale push, pushes. Push wuxuu ku dhammaadaa sh sida awgeed waxaan raacinaa es. Fix, fixes. Catch, catches. Confess, confesses. Pass, passes. Finish, finishes. sidoo kale ficilada ku dhammaado owga es raaci. haddii ficilka qaybta koowaad ee I, we, you, they half qaadanayeen he, she, it, has, she. Examples work aan soo qaadano ficilka ah work shaqo. I work in London waxaan ka shaqeeyaa London. They work in Berlin waxay ka shaqeeyaan Berlin. He works in an office isaga wuxuu ka shaqeeyaa xafiis. Study oo ah barasho. You study English waxaad barataa Ingiriis. You study English. We study geography and she studies French. halka waxaa ka dheehanaysaa in marka laga hadlayo he, she in lagu daray ficilkooda s. erey finish I finish early. You finish late. John finishes tomorrow. And pass. You pass your exam. They pass their exam. Mary passes her exam. muhiimadu waxay tahay in aan fahanno qaacidada maaha erey kasta inaan sharaxno. waxaad ogaanaysaa haddii laga hadlayo qofka saddexaad mufradka he, she ama it in ficilkooda marna lagu daray s mar y-da la tuurayo is lala imaanayo marna es lagu daray. muhiimadu waa taas. And do. They do their homework. We do our homework. She does. markii laga hadlayo do sameyn ah he, she, it waxaan ku daraynaa es das aan leenahay. Have,
ayadana waxay noqonaysaa has marka laga hadlayo he she it. You have a nice car, you have a big car. Fred ninka la yiraahdo has a black car, wuxuu haystaa gaari madow. Play, I play chess very badly. Your sister plays very well. Mix oo ah qasid. The chef and cook ama kariyaha mixes the flours the water, wuxuu ku qasaa daqiiqa ama burka biyo. Go waxaa raacaysa es asana go goes, do does, have has. marka kales he she it goes does has isticmaal. Statement waa qaybta warbixinta. Statement waa positive statement ama affirmative loo yaqaano oo warbixin caadi ah. I we you they marka ka hadlayno ficilka waxba laguma darayo, laakiin he she it waxaan raacinaa qaacidooyinka soo barnaa. I help my mother, waxaan caawiyaa hooyaday. We study English, waxaynu baranaa Ingiriis. You play football, waxaad ciyaartaa kubad. They speak Arabic, ayaga waxay ku hadlaan Arabic. He helps his teacher, isaga wuxuu caawiyaa macalinkiisa. She watches TV, ayaga waxay daawataa TV. It flies to Mogadishu, waxay u dushaa Mogadishu. Inta waxaan ku arkaynaa in marna lagu daro s, mar es, marna ies. Question ama interrogatives waa su'aal. I we you they ka hormaray do, ficilkana weli sidiis ayuu ahaanaya. Do I help my mother, hooyaday maan caawiyaa aniga. Do we study English, inay Ingiriis maan baranaa. Do you speak Arabic, Carabi maan ku hadashaa. Do they speak Arabic, ayaga Carabi may ku hadlaan. He is she it xilliga la joogo su'aasha. waxaa soo baratay in statementiga s, es ama is lagu daro. tani way ka duwan tahay. keliya waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku bilowdo das, laakiin ficilka aadna waxba ka bedelin. Does he help his teacher, isaga macalinkiisa muu caawiyaa. Does she watch TV, TV miyay daawataa. Does it fly to Mogadishu, Mogadishu miyay u duushaa. ku bilaabaysa oo keliya das, kadibna subjectiga he she it, kadibna ficil sidiisa ah. Negativeka waa diidmada. I do not oo loo soo gaabiyo don't ama don in American accent. I do not help my mother ama I don't help my mother, aniga ma caawiyo hooyaday. We do not study English, inagu Ingiriis ma barano. You do not play football, adigu kubad ma ciyaartid. They do not speak Arabic, ayagu Carabi kuma hadlaan. He does not ama doesn't loo soo gaabiyo. tanne waxaa loo baahan yahay oo keliya doesn't ama does not, laakiin looma baahno ficilka in wax lagu daro s ama es ama is, looma baahno. He does not ama he doesn't help his teacher, asaga ma caawiyo macalinkiisa. She does not watch TV, ayuu TV ma daawato. Does not fly to Mogadishu, Mogadishu ma duusho. Negative question ama question with negative waa su'aal wadata diidmo. waxaynu rahnaa waryahay miyaadan baxayn, miyaadan casharada akhriyaynin. marka waa noocaas, waa su'aal wadato diidmo. Don't I help my mother, aniga miyaanan caawin hooyaday. Don't we study English, inagu miyaanan baran Ingiriiska. Don't you play football, kubad miyaadan ciyaarin. Don't they speak English, miyaysan English ku hadlin ayaga. Doesn't he help his teacher, isaga macalinkiisa miyuusan caawin. Doesn't she watch TV, miyaysan ayadu TV daawan. Doesn't it fly to Mogadishu, miyaysan Muqdisho u duulin. sidoo kale xarfaha la yirahdo adverb of phrases sida always had iyo jeer, often inta badan, usually caadiyan, sometimes mararka qaarkood, are often used with this tense. tense waxaa la isticmaala ereyda ah always, waxaa dhigi karta I always play football, I often watch TV, she usually speaks English, I sometimes go to school. waa always had iyo jeer ah, often ama often lagu dhawaaqo labada dhinacba, ama often dheh ama often, waxaa mar walba, inta badan, usually caadiyan, sometimes mararka qaarkood. ereydanna waa lala isticmaalaa tensigan. Some habitual actions, qaar ka mid ah habitual actionska hore soo sheegnay oo ah waxyaabaha sida dabiiciga u dhaco, caadiyan mar walba dhaco. habitualka mar walbo. some habitual actions, qaar ka mid ah ficilada habitualka ah ee caadiyan u dhaco waxaa ka mid ah the shops are open at 8 mornings, dukaamadu way furan yihiin aroortii 2 subaxnimo ama 8 subaxnimo way furan yihiin. The sun rises in the east and sets in the west, qoraxdu waxay kasoo baxdaa dhanka bari
westina u dhacdaa galbeed. It rains so much during spring. Roobka aad buu u da'a xilliga gu'a. Marka kuwan waxaa la yidhahdaa habitual actions waa kuwa iska caadiyan u dhaca weeyaan. Kumaasna daawashada insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahantay. Allahayow hooyadeen hoy jannada ka see. Allahayow hooyadeen hoy jannada ka see. She's my pillow when I cry. She holds me inside when I can no longer fight. Hoya is my light at night to guide me when I can't see right. Allahayow hooyadeen hoy jannada ka see.